madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uusan wax garowsho iyo raaligelin ahba ka bixi doonin muuqaal ku baahay bartiisa Truth Social oo ku saabsanaa madaxweynihii hore ee waddankaasi Mareykanka Barack Obama iyo xaaskiisa Michelle Obama kuwa oo laga dhigay daanyeero kuna sugan kaymaha waaweyn. Waxa uuna intaa ku daray madaxweynuhu in muuqaalkan uu daalacday bilowgiisii hore ha yeeshee uusan dhammaysanin. Trump ayaa sheegay in muuqaalkan uu cajabiyey bilowgiisii oo fiirsada maadaama uu ku saabsanaa doorashooyinkii isdabamarinta ee 2020 ka dhacday dalkaasi Mareykanka. Waxa uuna sheegay in arrinta muuqaalka uu ahaa mid ay fiirsadeen isaga iyo kaaliyihiisaba intii ugu horeysay ka oo lagu dhaliilayay doorashadii ka dhacday Mareykanka 2020 taa oo ay ka muuqatay isdabamarin baahsan. Ha yeeshee muuqaalkan ayaa markii la soo dhigay bartiisa internetka waxaa gunaanadkiisii ka muuqday madaxweynihii hore ee dalkaasi Barack Obama iyo xaaskiisa Michelle kuwa oo daanyeero ah kuna dhex sugan kaymo. Waxaana arrintani ka dhalatay caro aad u xooggan taa oo keentay in siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga iyo sidoo kale kuwa jamhuuriga ee uu ka soo baxay madaxweyne Trump intuba ay ku dhaliilaan kuna tilmaamaan fal cunsuriyad ah oo lagu kala faquuqayo dadka Mareykanka. Taa oo sababtay in 12 saacadood kadib markii uu muuqaalkan ku baahay baraha bulshada uu ka saaro madaxweyne Trump bartiisa. Ha yeeshee waxa uu ku adkaysanayaa in uusan garaawshiyo iyo raaligelin midna uusan ka bixinaynin maadaama qaybta dambe ee daanyeerada laga dhigay madaxweynihii hore iyo afadiisa uusan isagu daawanin qaladkana uu ka yimid qofkii tafatiri lahaa. Ha yeeshee muuqaalka waxa uu sheegay in uu yahay mid aad u wanaagsan oo muujinayo aliishii ay lahayd doorashadii dhacday 2020 taa oo uu dareensan yahay in si qalada ay ku dhacday. Ha yeeshee arrintan ku saabsan in madaxweyne dalkaasi soo maamulay iyo afadiisa laga dhigay daanyeero iyaga oo lagu cunsureynayo midabkooda madowga ah ayaa waxaa ka dhalatay dhaliilo aad u xooggan oo ku wajahan madaxweynaha dalkaasi iminka maamula ee bartiisa qaaska uu u leeyahay soo dhigay madaxweyne hore iyo afadiisa oo daanyeero ah kaymahana ku sugan. Waxaana arrintan caro xooggan ka muujiyay dadweynaha kala duwan ee dalkaasi Mareykanka iyo siyaasiyiintooda labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga kuwa uu ku tilmaamay fal cunsuriyad iyo faquuq ah. Ha yeeshee madaxweyne Trump ayaa ilaa iyo iminka ku adkaysanaya inaysan jirin garawshiyo iyo raaligelin uu ka bixinayo fiidiyogaas daanyeerada uu kaga dhigay madaxdii hore. Wuxuuna sheegay in uusan wada daawan muuqaalka ha yeeshee markii uu ogaaday uu ka saaray bartiisa internetka. Arrintan ayaa waxa ay sii xoojinaysaa dhaliilihii hore ee ku saabsanaa cunsuriyadda iyo sidoo kale isla weynida ku jirta madaxweynaha dalkaasi iyo kooxda ka agdhow. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaan idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.